safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalka Somaliland mudane Xuseen Cumar Kawaaleeye oo warbaahinta kula hadlaya xarunta safaaradda Jabuuti ku leedahay caasimadda Somaliland Hargeysa waxa uu sheegay isagoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka waddankaasi waxa uu sheegay inay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan madaxweynaha cusub ee ay dooratay dalkan jamhuuriyadda Somaliland waxaanu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti la barbar taagan tahay hiil iyo hooba markasta dalkan jamhuuriyadda Somaliland anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle magaca marwada koobaad ee jamhuuriyadda Jabuuti Marwo Khadar Maxamuud Xayd magaca xukuumadda Jabuuti iyo dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Jabuuti khaasatan jaaliyadda reer Somaliland ee Jabuuti joogana magacooga ku hadlaya ee sida quruxda badan leh uga soo qayb galay foodkii waxaan leeyahay hambalyo baan ka leeyahay madaxweynaha cusub Muuse Bixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay hambalyaan nii soo direynaa jamhuuriyadda Jabuuti nahay annagoo laba dal oo walaalo ah wada shaqayn wanaagsan naga dhaxayso wada nolosho wanaagsan naga dhaxayso waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay dhinaca kalena wuxuu safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Somaliland uu shacabka Somaliland ku bogaadiyay sidii dimuqraadiyaddu ku dheehnayd ee ay ugu soo baxeen ololihii iyo campaignkii ka socday dalka Somaliland sidii qiimaha badan leh ee dimuqraadiyadda ee quruxda badan leh ay u codeeyeen waxaan ka wada leeyahay meeshay doonaan baa joogaan shacabweynaha Somaliland hambalyo baan ka leeyahay hambalyo dimuqraadiyad waxaad muujiseen dimuqraadiyad aad u qurux badan iyo inaad shacab u bislaaday dimuqraadiyadda tiimbaad adduunka tusteen waxaan leeyahay hambalyo gabageennaba waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qulle sawir qaadi Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Somaliland xarunta safaaradda Jabuuti.